dhawaad cashirkeena maanta insha Allah cashirkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay wax la yiraahdo brain test ama tijaabada maskaxda qofka erayada qadda madowda insha Allah ayaa ku baran doonaa word study oo kale marka insha Allah dhageysi haboon halkan waxaa inoo qoran can you test your brain with a simple question ma ku tijaabin kartaa maskaxdaada eraya fudud ama qofka kale saaxiibkaaga ma ku tijaabin kartaa su'aalo u badan yihiin do you think this water is too deep or shallow? Do you think this water is too deep or shallow? Do you think ma malaynaysaa this water biyahan is too deep inay mool yihiin ama salkoodu dheer yahay or shallow? Ereyga deep waa wax salkiisu aad u fog yahay halka shallowna ay ka soo horjeedo ay tahay wax salkiisu dhow yahay. Waa garanay. Can you separate your enemy from your friends? Can you ma awoodaa to separate inaad kala saarto ama aad kala aqoonsato your enemy cadowgaaga from your friends qofka cadowga kugu ah iyo kan saaxiibka kugu ah inaad kala saarto ama aad kala aqoonsato ma awoodaa. Su'aal kale iyadana what is the difference between death and path? su'aal baa la weydiiyay waxaa la yidhi what is the difference maxay tahay farqiga u dhexeeya death geeri and path iyo dhalasho labadaas shay waxa u dhexeeya muxuu yahay? Can you differentiate ma kala saari kartaa ereygan differentiate waa kala saarid ka kor difference-kaas ka dhow yahay laakiin waa xogaa qoraalka kala duwan yihiin. Can you differentiate ma kala saari kartaa between brave and cowardly? geesinimo iyo fulaynimo waxa ay tahay ma kala saari kartaa ama qofka geesiga iyo ka fulayga ma kala saari kartaa? waa gartay. Can you tell me ma ii sheegi kartaa the difference farqiga u dhexeeya between the bottom and the top? haddii lagu yidhaaho maxay ku kala duwan yihiin gunta iyo baar ka sare tusaalahaan baa gun iyo baar gunta laga hadlaya waa bottom salka hoose iyo qaybta sare maxay ku kala duwan yihiin? jawaabtaada laga rabaa. How can you separate boy and girls? wiil iyo gabadh seed u kala saari kartaa maxaa ku kala macnayn kartaa boy and girl labada waxay ku kala duwan yihiin noo sheeg. waa garanay. At least give us one example of the difference between apart and together. At least ugu yaraan give us noo sheeg one example hal tusaale of the difference between apart and together. apart wax kala dhaqaaqay ama kala tegay and together iyo wax isla jira oo isla jooga maxay ku kala duwan yihiin? Can you give me ma isiin kartaa simple explanation maxaa ku dhaha sharaxaad yar between artificial and natural? Can you give me ma isiin kartaa a simple explanation sharaxaad gaaban between taasoo u dhaxaysa artificial waxa gacan ku samayska and natural iyo waxa dabiiciga ah? iyadana waxaa su'aal waaye dabiici iyo gacan ku samays. waa garanay. How will animals and human being depend on one another? How will ama how can ka dhigalkan how can animals xawayaanka and human being depend on one another siday isugu tiirsan yihiin ama noloshoodu isugu tiirsan tahay ama isula xiriiraan xawayaanka ama xoolaha iyo bini aadamka? waa garanay. Which one will stronger water and fire when they meet together? Which one will stronger water and fire when they meet each other? waxaa lagu dhahay keebaa awood badan water biyaha and fire iyo dabka when they meet markay kulmaan biyo xoog leh iyo dab xoog leh kee ayaa labadooda awood badan? waan garanay. What is the meaning of the word accept and accept? labadan erey waa isku dhawaaq laakiin macnahaan iyo qoraalahaan waa kala duwan yihiin. waxaa lagu dhahay what is the
meaning muxuu yahay macnaha of the words ereyada accept iyo accept. ereygan hore accept waxaa loo isticmaalaa accept markii laga reebo. falkan waxaa sameeyey hebel iyo hebel markii laga reebo inta kale ardayda. accept waa ka reebid ama ka reebanaan. acceptina waa aqbalid. I accepted. they get tusaalahaan waxaan dhihi karaa way soo daaheen markii laga reebo hebel iyo hebel. accept kolkii laga ka reebanaan shay noqon tanna aqbalid bay noqoni. waa garanay. what do we mean maxaan uga jeednaa by peace. peace oo ereygana iyo peace oo ereygana waa garanay. we mean peace waxaan horaan soo qaadanay ereygan. peace waa qayb yar. tusaalahaan oo kale piece of land qayb yar oo dhula. piece of food qayb yar oo cunta. a piece of cloth in yar oo dhara. peacena waxay noqonaysaa nabad. peace maxay noqonaysaa nabad. waa garanay. true and false are two opposite words. what are they mean. waxaa lagu dhahay true and false are two opposite words. waa laba erey iska soo horjeeda. what are they. what are the difference between these two words. labadan erey ee true iyo false farqiga u dhexeeya muxuu yahay. jawaabtaada lagaaga fadhiyaa. waan garanay. have you satisfied or suspected this information. waxaa lagu dhahay have you satisfied or suspected this information. warkan ma ku qanacday mise waa ka shakisan tahay. ereygaas satisfied waa ku qancid. suspectina waa ka shakin. marka insha allah ereyadan waa ereya aada muhiim u ah qofkii danaynaya inuu barto luuqadan. waxaana rajaynayaa intan oo ereyaha dhammaantood inaad idinku ka samayn kartaan jilmad iyo macnaha statement iyo gaar idiina. barashada luuqadana waxaa aada muhiimkeeda uga mida ereyada cusub inaad baratid. intaasaan ku daynaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.